السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idil kiimba meel kasto aad naga daawanaysaan. Jimco wanaagsan khiyaaray. Taariikhdu maanta waa 14 bisha June sanadka 2024 maalinimo Jimco ah. Barnaamijkuna waa kii ugu horeeyay haddii Allah idmo barnaamijyada inuu maanta idiin soo gudbin doono. Qodobada barnaamijkan idinku hayo waxa kamid ah dagaalka ka soconaya Gaza halka uu marayo iyo saakay meesha la iska bilaabay iyo xaaladdu sida ay tahay ayaanu war idinkaga haynaa. Waxa soo kale aanu warbixin idinkaga haynaa sheeko cajiiba oo ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka oo ay leeyihiin waxaanu idiin haynaa xogta ku qarsoon sababta Israa'iil iyo Xisbullah dagaal ballaaran u dhexmari laayahay oo ay isugu tuurtuurayaan dhinaca xuduudda kaliya. haddaba su-aasha muddo dheer baynu isweydiinaynay maanta qayb ka mid ah xogteeda waxaa qoraya qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka. haddaba waan idinla wadaagi doonaa sheekada halkaa ku qarsoon iyo sababta dagaal baahsan labada dhinac ay isugu qaadi laayihiin. madaxweynaha Masar ayaa waxaa la sheegayaa inuu sanadkan Sacuudiga u tagay ka qayb qaadashada xajka, laakiin warbaahinta iyo qaybaha kala duwan ee ay bulshadu ku xiriiraan ayaa si weyn loogu garaacayaa odaga. xaj muxuu ka doonayaa? dhibaatada uu geystay waa ogyahay iyo waxa meesha ka socda waa yaabaysaa. haddaba sheeko iyana arrimaha ku saabsan aan idin hayaa muqaawamada waddanka Ciraaq oo sheegay inay weeraro baahsan qaadeen. waxay weerareen sida ay yiraahdeen Israa'iil ciidamada Mareykanka ee jooga Ciraaq, kuwa Mareykanka ee jooga Suuriya. haddaba tafaasiil ku saabsan weeraradaasi sida ay wax u dhaceen barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. inta aan barnaamijka ku jirno wixii warara soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa. kulanti wanaagsan khiyaaray meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena. waa barnaamijkii ugu horeeyay maanta oo Jimcaha aan idiin soo gudbinayno. haddaba qodobka ugu horeeya barnaamijkan waxaynu ku daahfuraynaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa aada u soo badanaya wararka sheegaya in gaajada iyo macluusha ay kusoo badanayso Gaza. sababtu maxay tahay? sababtu waxay tahay sidaa ogtihiin muddooyinkii ugu dambeeyey meel walba waa laga xiray Gaza. macbar Rafax oo wax kasoo gudbi jireenna waa la xiray. waxaa dib u soo laabanaya marka gaajadii, cunto la-aantii, dhibaatadii. maanta oo Jimcaha wararka ka soo baxaya Gaza waxay sheegayaan in caruur ay durbaba bilaabeen inay ugu dhintaan gaajo, nafaqa darro, macluusha iyo halkaa ka jirta aawadeed. haddaba aan idin soo warbixintii ugu dambeysay ee Al Jazeera ay sheekadan ka qortay. Al Jazeera waxay leedahay waxaa shahiiday wiil yar kadib markii ay la soo diristay dhibaato ku saabsan nafaqa darro iyo gaajo dhinaca waqooyi ee magaalada Gaza. wariyaha telefishinka Al Jazeera ayaa soo sheegaya in cunugaasi uu ku shahiiday isaga oo dareemaya gaajo iyo nafaqa darro dhinaca waqooyi ee marinka Gaza. hay-adda caafimaadka adduunka ayaa waxa ay ka digtay maalinnimadii Arbacadii ee lasoo dhaafay in badan oo ka mid ah dadka ku nool marinka Gaza ay la kulmayaan dhibaato weyn oo soo wajahda haddii aan degdeg dadka loogu furin marinada gargaarku u soo maro oo ay Israa'iil isku gadaantay gebigood. waxaana la sheegayaa in dadkaasu ay hadda soo wajaheen gaajo iyo duruufo fara badan oo la xiriira dhinaca cunno la-aanta iyo biyo la-aan. xataa meelaha qaar dhibaato fara badan ayaa laga sheegaya. warkaasaa marka yaala. marka waxaa la bilaabay dadkii in la yiraahdo war adduunyadu xoog hay saarto dadkan gaajo ayaan loo dilin. Israa'iil hubka camal ayay u isticmaashaa inay gaajaysiiso dadka.
si ay uga adkaato. taasna way u suurageli laada. maraykan dhowr jeer uu ku celceliyay si aad ogtihiin uu yidhi hala furo meelaha gargaarku soo marayo, waxba ha ka sheegin. israa'iil maba la hadli karaba. dadkan kale adduunyada loo sheegaa riwaayadaas, ha sheegin waayo. madaxweynaha maraykanka markii uu kulanka talyaaniga dowladaha toddobada warshadaha horu maray uu ka hadlayay, su-aalo la weydiiyey waxaa ku jiray rajo ma ka qabtaa in heshiis goordhow la gaaro xamaas iyo israa'iil. mayuu dhahay, wuxuuna eedda dusha ka saaraa xamaas. wuxuu leeyahay xamaas way adkaynaysaa baasha, israa'iil maba la hadlaayo. u fiirsada marka hawshu halkaasay maraysaa. marka dhibaatada marka ugu weyn ee dadka carabta iyo dadka islaamka ay sheekadan waxay dusha u saarinayaan masar. waxay leeyihiin masar kow iyadaa u fasaxday israa'iil inay halkaa timaado, ogolaanshiyaheeda ama xoog kale oo dhinaca maraykanka oo hala fasaxo la yidhi waxay doontaa ahaado, halkaas iyadaa timid. macbarkii rafax ayay israa'iil xirtay. masar way u jeedaa, waxba kama qabanayso. marka gaajaysiinta dadka reer gaza la gaajaysiinayo, la dhibaataynayo, dowladahan u qaybay ka yihiin alle, kuwa carabta kuwa islaamka. weliba masar ayaa dadku dusha ka saaraya. iyadoo sheekadaasu ay taallo dadkii gaajo u dhimanayaan gaza, ayaa mar kaliya waxaa la arkay warbaahintii waxaa kasoo muuqday madaxweynaha masar sisi oo la leeyahay sanadkan xajka ayuu ka qayb galayaa, oo macnaha dadka xujayada ayuu ka mid yahay. markaasaa social mediahii iyo meelihii internetka bulshada ku xiriiraysay lagu jarjaray si kale muu taqaanid. muxuu ka xajinaa le falastiin isagaa khiyaamay, baabi'iyey, dhibaato fara badan u geystay, gaajaysiiyey. muxuu ka xajinaa? xajka ma dalxiis miya ay dheheen? dalxiis maa loo aadaa. haddaba marka aan idin tuso wakaalada wararka ee wadanka turkiga ayaa waxay qortay sheeko ku saabsan madaxweynaha masar ayaa gaaray wadanka sacuudiga si uu usoo guto faradka xajka. waxay ku leeyihiin madaxweynaha wuxuu tagay sacuudiga, safarkiisi wuxuu ka bilaabay magaalada madiina, wuxuu booqday masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam, kadibna waxa uu xalay waqti dambe tegay magaalada maka si uu halkaa uga xarbado oo uu maanta dadkii uu u bilowday xajka mina ayuu ka mid noqday. marka waxay leeyihiin ma la iska aadaa meesha? waxaan la yaabnay ku leeyihiin xajaa aadaa. muxuu xajka aadaa ay leeyihin? ninka hoostiisa lagu laynayo dadkii masaakiinta ahaa, muslimiinta ahaa, carabta ahaa, deriska ay ahaayeen, oo yahuudda inta qabato nagta ka gelinayso oo aan afka kala qaadayn. marka muxuu ka xajinaa ay leeyihin? xajka muxuu ka doonaa? marka waxay leeyihiin sheekadaasu marka ninkaa odaga ah aadaa loogu kacsan yahay. baraha bulshada carabtu ay ku xiriiraan oo dhan waxaa leeyahay waxaasu wax ka jira malay leeyihin xajkiisa. laakiin ilaahay baa og cibaadada aqbalkeeda iyo maaragtay diidmadeeda allah subxaana wa tacaala iska leh. laakiin dadkanu waxay ku xiriirinayaan, waxay leeyihin caruurtan la gaajaysiinayo agtiisa ku dhimanaysa, dadkan lagu garaacayo agtiisa oo iska daawanayo, wax walbuu samayn karaa ay leeyihin. israa'iisha albaabka joogtay inta ka leexiyo ayuu gargaarka gelin karaa, laakiin ma rabo. hawshaas halkaasaa kaga gudbaynaa. waxaa noo soo socotaa sheekada cajiibka ee ku saabsan xogta xisbullah iyo israa'iil dagaalkooda ku saabsan. hore idinkugu sheegay waxaa idin iri waxa kan waa loo calaamadeeyey meeshaan. hadda warbaahintii maraykanka waxay leeyihiin sababta halkan ay xuduudda keliya ay ugu baashaalayaan waxaa maqle fiile shalay hadda waxaa ku qoran aljazeera waxaa ku qoran israa'iil waxay sheegtay 35 gantaal saacadihii lasoo dhaafay inay kasoo dhaceen lubnaan. maalin hore 170. waxaasoo gantaalaha xaggee ku socdaan ayaga? waxaa maqle bes kaymaa gubanaya. oo kaymaa muxuu kala doonaa xisbullah? iskuullaa ku yaala, cisbitaallaa ku yaala,
guryaa ku yaala yuhuudda dekata xataa dadku hadday qaar badan ka qaxeen meelihii xataa aaw marmara waxaa arkaysaa saldhig militariya wax ku dhaceen laakiin 170 gantaal waxa dhan oo soo wiifaa soo socda xagee ku dhacayaan dhul bannaan iyo meel kaymaa macnaha dhoolatus waa dhoolatus waxaa hadda lagu tilmaamay xisbullah iyo israa'iil waxay samaynayaan marka hawshaasu marka way noo soo socotaa warbixin ayaa laga qoray laakiin markan waxaan u gudbaynaa oo galaynaa Gaza dagaalada ka socda kooxda Saraaya al-Qudus waxay leedahay waxaynu duqeynay saakay ciidamada Israa'iil ee soo galay Rafah dhanka kale Kataab al-Qassam waxay sheegtay iyaduna inay isku horimaadiyo ka socdaan qaybo kamida Rafah oo mujaahidiinteedu ay la dagaalamayaan ciidanka Israa'iil halkaas nagtaa la isku hayaa dhanka kale Khan Yunis saakay markab ay leedahay Israa'iil ayaa madaafiic ku soo garaacay cirka waa la iskala tegay dhulka waa la iskala tegay xataa maraakiibay ku garaacaysaa waxna way qaadilaadeen waxa lee markabay ku soo garaacday Khan Yunis agteeda meel ah gantaale ku dhufatay dad ayaa ku dhaawacmay oo markaa dhibaato ay ka soo gaartay war goordhow soo baxayna waxaa la sheegayaa saraakiil Israa'iil laga soo xigtay waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa degdeg inaan u soo gabagabayno dagaalka Rafah oo ciidankeena aan u jihayno dhinaca waqooyiga ama Xisbullah xageed marka saasay ku leeyihiin waxay ku leeyihiin dagaalka inaan soo gabagabaynaa rabnaa oo Xisbullah xooga saarno marka hawshaas iyaduna waa wararkii ugu dambeeyay muqaawamada Ciraaq waray soo saareen waxay leeyihiin saakay oo jimcaha waxaynu ku jimcaysanay weerar kala duwan oo aan nagta kaga gelinay yuhuudda Mareykanka degan Ciraaq iyo Mareykanka degan Suuriya wixii oo dhan nagta ka gelinay leeyihiin haddaba marka aan idin tuso warbixinta laga qoray dagaalyahanada ama muqaawamada waddanka Ciraaq waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen saldhigga la yiraahdo Ramat David ee dhinaca cirka oo Israa'iiliyiintu ay leeyihiin muqaawamada islaamiga Ciraaq waxay sheegeen in dagaalyahanadoodu ay bartilmaameedsadeen aroornimadii saakay oo jimco ahayd saldhigga la yiraahdo Ramat David oo dhinaca cirka ah oo Israa'iiliyiintu leeyihiin waxay sheegeen saldhiggaasi inay ku weerareen diyaarado drone ah oo ay markaa ujeedadii ay u weerareen ay ku guuleysteen oo ay diyaaradaha ku duqeeyeen muqaawamada islaamiga Ciraaq waxay sheegeen inay iyagu mas'uul ka yihiin weeraro dhowr ah oo isxigxigay oo dhacay kuwaasoo loo isticmaalay gantaalo diyaarado drone ah kuwaasoo lagu weeraray saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Ciraaq iyo Suuriya waxay sidoo kale sheegeen inay weeraro ku qaadeen gudaha Israa'iil oo dhowr weerar iyadana ay ka geysteen tan iyo markii uu qarxay dagaalka Gaza haddaba Israa'iil wax tafaasiil oo rasmi ah oo weeraradaasi ay ka soo saartay ma jiraan iyo sheegashada Ciraaqiyiinta oo ay sheegteen inay iyagu markaa weeraradaasi ku qaadeen saldhigga military ee la yiraahdo Ramat David ee dhinaca cirka saldhigga la weeraray markaa waxyaabo badan dadka wax tacliiqiya ay ka hadlayaan Ramat David la yiraahdaa saldhig cirka waaye inta badan diyaaradaha lagu duqeeyo Gaza meesha ay ka kacaan waa macnaha dhowr saldhig ay ka kacaan laakiin saldhiggan qayb uu ka yahay diyaaradaha weerarka ku haya habeen iyo maalin nagta ku haya maaragtay Gaza halkan ay ka kacaan marka waxaa leeyahay meesha qiiq fara badan ka baxay dadka wax soo qoraya lama oga marka khasaaraha ma diyaaradaha nagta laga geliyay oo meesha fadhiyay wax ku dhaceen lama yaqaano marka Israa'iilna wax tafaasiil oo dheeraad ah oo arintan ay ka soo saartay ma jirta la leeyahay qodobkaas isaguna waa ka gudbaynaa qodobka kale marka barnaamijka ugu muhiimsan aan u imaanaynaa dhowr mar waxaan idin sheegay oo aan idinku celceliyay ha isku daalinina Xisbullaahi ayaa weerar qaaday madaafiic garaacday wax ka jira ma jiraan dagaal toos ah Xisbullah iyo Israa'iil halkaas inuu ku dhex maro ma rabaan 200 oo gantaala la tuuraa hal guri oo dumayna ma arkaysid waxaa maqlay bas dhul kaymaa oo geeda leh ayaa la holciyay
aawa meeshii wax kala ku dhaceen marka meeshaas ruwaayada ka socota dagaalkoodana xuduudda eriyadaas magaalooyinka ku yaala keliya nagta la isaga dhigaa waa laysu booteeyaa waa laysu hanjabaa waa kaas israa'iilaba marmar waxay dishaa hogaamiyayaal xisbullah sida la sheego laakiin xisbullah dhankooda waxay leeyahay iyagoo awood u leh inay meel kastoo israa'iila duqeeyaan haddana tallaabtaa ma qaadayaan sababtoo ma rabaan dagaalkaas marka waxaas mar horaa idiin sheegi jiray waa ogtiin waxaan idinku idhi meeshaan waxbaa laysu calaamadeeyey nimankan dagaalku runka ma ah oo la xoofta iyo xisbullaahida inkastoo waxaa leeyahay xisbullaahi iyagu waxay rabaan inay u hiiliyaan gaza laakiin cidda ka saraysa xisbullah waa iiraan iyo cidda ka saraysa israa'iil oo ah maraykanka ayaa labadoodu waxa ay ku heshiiyeen dagaalka inaan la weyneyn ragga kanu hadday israbaan xuduudda inay nagta isaga dhigaan bis laakiin cid kale u gudbi karta male talaabiib kuwaan wax ma ku ridi karaan kuwaan bayruud ma weerari karaan kuwaan saas haddaba marka sheekadii iyadoo markii hore hoos ku socotay oo ruwaayadan iyo waxa kan iyo dadku aysan dheg jalaq u siinayn ayaa hadda miidiyihii ugu afka dheeraa maraykanka waxay qorayaan maanta ujeedada sababta ay halkaas sidaa u tahay haddaba marka aan idin tuso aljazeera waxay leedahay joornaalka weyn ee la yidhaahdo foreign policy ee kasoo baxa waddanka maraykanka ayaa maanta oo jimcaha wuxuu qorayaa xisbullah iyo israa'iil ma doonayaan dagaal weyn inuu dhex maro ciwaanka waayo haye way sii socotay warbixinta maqaal lagu daabacay majalada foreign policy ee waddanka maraykanka ayaa waxa ay caddaysay in dhinacyada xisbullah reer lubnaan iyo israa'iil labaduba aanay doonayn in dagaal weyn oo ballaaran uu ka dhex qarxo kaasoo dhinacyada u keeni kara ama u sababi kara burbur baahsan waxaana labada dhinacba ay u muuqdaan kuwo ilaalinaya in dagaalku uu ku weynaado oo markaa uu dagaal ballaaran noqdo haddaba baare ka tirsan macadka daraasaadka islaamiga ah ee galbeedka aasiya iyo jaamacadda london ninka lagu magacaabo cali haashim ayaa sheegay in xisbullah ay og tahay in dagaal ballaaran oo qarxa lubnaan uu u keenayo burbur ballaaran waxaana sidoo kale uu sababi karaa kumanaan dada inay dhintaan qaarna ay wax kuyeelo ka soo gaarto israa'iilna sidoo kale inay iyaduna ka baqayso dagaal baahsan in uu halkaa ka bilowdo waa kaas marka waxaan idiin sheegi jiray waa kana maraykankii qoraya foreign policy iyo lagu qoraya had mar hore ka shakiya aniga sheekada waxaan idin dadkan waxaan u malaynaa in meel loo calaamadeeyo idin sababtoo ah dagaal dhab kama ah dagaal waxa la yiraahdaa midka ka socda Gaza waxa la isku reebto meeshaas nagta la iska geliyaa dagaal waxa la yiraahdaa midka badda cas ka socda xuutiga iyo waxa kala haysta Mareykan barnaamijkii xalay waa weeyday Mareykan af labadii qayli وروحان يا نجد من توتاعي هاد وروحان يا نجد قبته وروحان سيل يلا ورقت كست أقر إيران الله هذا المي هالكاسن وكسر عتاباش لكن ما كان حسب الله لليه هاي إسرائيل هل كان مركا وحواي وحكوا عياريان ماشي سيدي كوبدي وكلا جرون كاس لحدي سنكتل سيجلنا ولما خسارة متى بقول يتضمعات جنتالي يصدني يشني بقول يعفرتني أمغلي بقول يعفرتني أو وحي ماشي كود إيه أو waxaa lagu tusinaa bis dhul kaymaa oo gubanaya lagu tusinaa bis marka waxa leeyahay hadda foreign policy waxa leedahay labaduba dagaal ma rabaan aysh laakiin ruwaayada ku jiraan wala iska daba tagaa meesha waxa waaye baash wala arkaa dagaalka dhabta ah iyo midka dhabta ahayn odagii xasan nasrullah soo u dhaaranay waxa sameeynayna laha lugaha la qabtay انت ما دافسي كرتل هذا ماشان نكتك قلي هداد واحد تورس واكاس خلاص هذا برنامج كان يقول ريي انت ايام كسوق بقبينا يا مركله وحنا دلها هي اخياري جمعه وراكسن مeel kasto aad naga daawanaysan barnaamijka laba ayaa noo haray hadii alla idmo
xoguhuna waa iska soo daba dhacayaan iyo wararka waanu isla socon doonaa haddii alla idmu saacadaha soo socda wixii soo kordhana waan idiin soo gudbin doonaa. fakar iyo aragti waxaad qabtaan noogu soo qora qaybta commentiska iyo fariimaha. waxaa sidoo kale aad noo soo qortaan aragtidiina ku wajahan ma idiin muuqdaa xisbullah iyo israa'iil dagaalkoodu inuu yahay mid iska ruwaayada sida warbaahinta ay ka hadlayso dadka wax taxliiliya ay sheegayaan adinku laftirkiinu caqlaa leedihiine soo qora waxay idinla tahay sababta waxa meeshaa ka socda 170 gantaal oo dab kicinaya oo kayma lagu duqeynaa aawo guryihii aawo cisbitaaladii aawo madaaristii aawo dhulkii israa'iil hoteeladeedii aawo maxba ku dhacayaan maxay sheeko waalana meesha ka socota. marka fakarkiina iyo aragtidiina bal soo qora barnaamijkana like gareeya oo share gareeya meel kastoo aad naga daawanaysaan. khiyaaray haddaad nagu cusub tahayna subscribe saar youtube-ka facebookana follow gareey. inta aan mar kale isu soo noqonayno haddii alla idmo iyo barnaamijyo kale waxaan idinkaga tegayaa meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo.